Assalaamu calaykum. Kalsoonida nafta iyo akhlaaqda waa laba sifo oo ay tahay in laga helo qof kasta oo guulaysta ama guul raadinayo. Hadday tahay waxbarashada, shaqada, ama xitaa xiriirka bulshada iyo qoyska. Sidaa darteed, waxaad arkaysaa in dadka intooda badan ay raadinayaan sidii uu u bedeli lahaa ama uu u kordhin lahaa isku kalsoonaanta iyo xoojinta shakhsiyadda. Waxaa jira dad raadinaya hab lagu dhiso dabeecadda iyo isku kalsoonaanta qofka. Dabeecadda ayaa adkaata xaaladaha qaarkood. Runtii khubarada cilmi nafsigu waxay ku kala duwan yihiin mawduucan. Qaarkood waxay yiraahdaan shakhsiyad adag waa loo dhashaa, qaarna waxay sheegaan in shakhsiyad adag laga helo deegaanka uu qofka markaasi uu ku nool yahay iyo waayaha nolosha hadba sida ay u soo qaabisho qofkaas. Laakiin cilmi baaris dhowaan la sameeyay ayaa tilmaamay in shakhsiyadda xooggani ay qayb ka tahay dhaxalka ama isir soo jireen ah, ha ka timaado dhanka aabe mise dhanka hooyada. Laakiin inta kale oo ah shakhsiyad adag oo karti leh waxay ku timaadaa helitaan waxbarasho oo heer sare ah iyo tababarid nafta. Sidaa darteed, kordhinta kalsoonida iyo shakhsiyadda dabeecadda wanaagsan waa wax la heli karo, laakiin waa ay yara adkaa doontaa si aad u baratid naftaada dabci wanaagsan oo adag oo isku kalsoon. Mar waliba isbeddelku ma aha mid sahlan, laakiin waa suurtagal inaad samayso shakhsiyad xooggan. Waxaa jira dad inta badan ka sheekeeya dhalanteedka horumarka aadanaha. Haddii aad ka mid tahay dadkaas, waxaad u baahan tahay inaad ogaato xaqiiqada horumarka aadanaha. Waa maxay qeexidda kalsoonida nafta? Iyo su-aasha labaad oo ah, waa maxay qeexidda shakhsiyadda xooggan? Qeexidda kalsoonida nafta waa heerka uu qofku aamini karo kartidiisa iyo xirfadihiisa, iyo inta uu awood u leeyahay in uu wax ka qabto dhibaatooyinka ama uu ka gudbo caqabad kasta oo uu la kulmo, dhankee doonto ha ka timaadee. Isla markaana aanay saameyn ku yeelan waxyaabaha xunxun ee uu la kulmo noloshiisa, sida dhaleecaynta iyo cayda dadka qaar ee bulshada kaga imaanaysa. Haddii aad shakhsiyad xooggan leedahay, waad ka gudbi kartaa, laakiin haddii aad daciif tahay, waa kugu adkaa doontaa in aad checkpointiyadaas adag aad ka gudub. Marka la eego qeexidda shakhsiyadda xoogga leh, waa shakhsiyadda ka faa'iidaysta xaaladaha adag iyo waxyaabaha ku dhaca qofka, kagana faa'iidaysta caqli iyo xikmado oo ka shidaal qaata mar waliba xikmadahaas iyo caqligaasi. Waxaa kale oo ay dadka qaar ku qeexaan shakhsiyadda xoogga badan inta ay la eg tahay awoodda uu qofku ku xakameyn karo naftiisa iyo waxa uu doonayo, iyo inta uu la eg yahay dheelitirka u dhexeeya rabitaankiisa iyo rabitaanka dadka kale ee asaga ku xiran ama ku dhow. Qof kale shakhsiyad xoog leh waa mid degan nafsad ahaan, si fudud ayuu u fahmi karaa xaalad waliba oo soo kordha, mana lahan dareen hoose oo uu iskaga indhatiro xaaladaha dhabta ah ee soo wajaha. Waxaa kale oo uu la tacaali karaa bulshada iyo dhibkeeda isaga oo ku tiirsan isku kalsoonaanta iyo aaminaadda awooddiisa shakhsiyadeed. Amaana Allah.